السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوديال halkani waa xarunta dhexe ee TV-ga Somali News ee Muqdisho kuna soo dhawaada warka TV-ga qodobada warkana waxaa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku amaanay dawlad goboleedka Jubbaland dhamaystirka doorashooyinka golaha shacabka Soomaaliyeed wafdi balaaran oo hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa magaalada Cerigabo kulan kula qaatay madax dhaqameedka gobolka Sanaaga hogaamiyaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa lagu eedeeyay inuu bedelay qaar kamid ah magacyada ergadii ay soo qorteen salaadiinta Galmudug daawadayaal qodobada warka sidoo kale waxaa qayb ka ah howlgalka caalamiga ee NATO ayaa ku dhawaaqay inuu soo aftiray hawlihii la dagaalanka burcabadeeda ee sanadihii u dambeeyay ka wada xeebaha Soomaaliya sidoo kale daawadayaal qodobada warka waxaa kamid ah warbixin ka hadlaysa dalka Iceland oo $5,000 bishii siinaya ninka ajnabiga ee guursada gabar u dhalatay wadankaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaa warka TV-ga xilligan kaga bogan doontaan u diyaar garooba